فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة. marka labaadna wuxuu leeyahay dawada waxaan ka bilaabaya hadaad qaadka joojinayso hadii kale wax taasiir yar raaday kugu leeday ma jirto idan waalidii buu badatay caafimaad darradii baa badatay hatta qaabka loo cunaa waxay yiraahdaan xanuunadii infection-ka ah iyo wixii jiray oo dhan buu noqday wax faafiya meel walba marka 10 qof inta isku soo qafisho habeen iyo maalin baa ay wada hadlaan una koob yar biyo la wada darsaday inta la wada fadhiyo waxa laaliya wixii xanuun mujtamaca ku jiray oo dhan wuxuu noqday si fudud wax ugu faafi kara xamar qaadka la keeno qura 7 ilaa 10 tan baa la keenaa daily $85,000 baa laga yaabaa in laga bixiyo haddaad hal sano xisaabiso kaliya waxa laga yaabaa ilaa 26 milyan inuu yahay waxaan u malaynayaa Hargeysa inta la keenaa inay inta in badan ka badantay haddii marka aad ku xisaabtanto waxaan odhan karaa qaadka hantida inagaga baxdaa mana maalin kasta hal warshad ay Soomaaliya ka dhisi lahayd daily waxay u badnaan lahayd inaad warshad samayn kari lahayd hantida qaadka ku waxay oranayeen wa ilaahukum ilaahun waahid laa ilaaha illaa huwa arraxmaanu arraxiim taasay ku oranayeen ilaahiin macbuudkiinu kaad caabudaysiin kaad u hoggaansamaysiin kaad cuskanaydiin ka awoodda leh kaad isu dhiibaysiin waxa weeyaan waa hal mid oo keliya asaga mooyaane ilaah kaloo wax taraana ma jiro dadka qaarkood ilaah markaayna waxay aaminsan yihiin cid loo sujuudo loo rukuuco kaliya ilaah luqada carabiga min aliha ya'lahu fahuwa ma'luh waxa la kan cid loo sujuuleeyo aliha bima'na ta'allaha bima'na tadallal weeyaan waa isduleeyay cid ka soo la sujuuleeyo cid ka soo la suugaamiyo cid ka soo maartan la ixtiraam maartay xad dhaafsan cid ka soo jacayl runta la jeclaado cid ka soo la baryaysto cid ka soo la maartay la cuskado cid ka soo la tuugo taas ba ilaah la yiraahdaa qada carabiga walidaalika ogaataan way arinta gaditaanka iyo ganacsiga kana diinu leeyahay marka diimahooda dadka maadaa ka fiican dadkoo dhan marka cilmigu wuxuu oranay ma kama fiican dadkoo dhan aniga waxa leeyahay marka diinta nasaarada waa diin weeye yahuudiyaduna waa diin weeye siikhismkuna waa diin weeye hinduuskuna waa diin weeye budhuhuna waa diin weeye muslimkuna waa diin weeye marka diimahooda dhan inaad aqbashid weeye diimahooda dhan inaad aqbashaahi waa ku qasbanta ilmihi waa ilmo yaro marka gaal wuxuu sharxayo waxa laga dhaadhicinayaa in aw aqbala inay tahay laga maarmaan oo lagu qancisiyo madaahibu diiniyo dhan iyo aqaa'id al-baatil oo kulligeena oo aqbala awoodo iskaga celiyo yiraahdo waxaan aad wadataan diin maahana malahan ilmihi yarka aha oo qof weyn maaha halkaas marka canugiyo qasan baa ku iimaanay canugiyo qasan yaa ku iimaanay 24 ka saac oo laga soo qanciyo leeyahay war diintaadii diintayda bataydaaba fududba salaadna la igama raba aniga soonna la igama raba aniga diintaydana waa haystaa diintinu waa diin ma khasab marka Soomaalida hooyo aabaha waxa ka dhaadhacsan wiilka hadaan iskuulka Swedish ka tagin waa baabay iskuulka Mareykanka hadaan tagin waa baabay waxaan ku soo khatimayaa nintu rasuul saaxiib isaga yaqaan adaa lagu yiri ilmaha ka badbaadinaar ilmaha iskuulada public iskuulka la geenay ama America ha noqoto reer Mareykan oo u sheegay waa maw'uuda idinkana ka mas'uula وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت المها لغسي دينا اللبية 8 ساعة قال إنه هيستو وإلما الحبال نولولوديي وي هدر بهاللو هذا حبالي محبر يا قال مدين بو شيء معقيد بو شيء معقيدة أهل السنة والجماعة صبر يا اللبية 8 ساعة أما أفر يا 8 ساعة ما يما صبر يا وحي للشيء يبو كرادي عنا يا مركينا اسكتنا عنه حوايه أولاً وركانه ضبان قلايا قيانا ويسك إلالينا يوي قال إنه لحدقني خير جيدو النار الصعدان كل حضرني إسو ليبني مركا اللي باتدا إنه إلمئي أمد واكبادان تاي حل كلنا ماله إنه ماشا كقورنا معه إنه ماشا كقورنا قلبين ولا نهاية إنه ماشا نيتقنا معه
intaynu meeshaa joogna xag ubad xag aabbo xag hooyo xag shaqaale meel noon caafimaad qabta ma leh laakiin sidaa sheikhu u sheegay haddana inaynu nacasnimadii iyo doqonnimadii aanu gaalada ugu lug darnay haddana damanaan ku darno damanaan adan ogeyn ilmahaaga casharkuu qaatay iyo wuxuu yahay iyo meeshuu maray iyo isaga naftiisa dhibaatadeeduu leeyahay waa inaad kormeero intaad noqotid ilmihii la socotid habeen kastaba weydiisid waxa loo sheegay waxay ku soo shubtay gaaladana aad caawa ka shubtid haba wareer ilmahe markaa doqonnimo oo tii meesha lagu yimida iyo damanaan aan ubadkii loo dangelin yaan la ysku darsan xalka runta ana waa inaynu guuro dalkeennii tagno wabilaahi tawfiiq awalan kollay warkeenna waa la duubahaya waana la tarjumi doonaa CIA iyo FBI iyo MFI miyay ahayd tii ingiriiska mise MF5 I don't know dadkaasoo dhan baa loo tarjumi doonaa gaalo waxaan leeyahay idinku shar baad nala jeceshihiin laakiin wallaahi annagu inaanan shar idinla jeclayn khayr baan idinla jecel lahay taas horta ku talagala waxaan jecel lahay khayrkii inaanu jecel lahay waxaana daliil u ah inaad shar la maagan tihiin allah noo sheego wuxuu ilaahay yidhi subxaanahu wa tacaala laa yarqubuuna fii mu'minin ila walaa dimma wa ulaa'ika hum almuctaduun dadkaa gaaladii ihi qof mu'min ah ballan iyo qaraabanimotoona ku ilaalin mayaan waa niman gardaran buu yidhi waana idinka aragnay waa idinka fii ardi somaal fii filistiin meel kastaan idinku aragnay annaguse khayr baanu idinla maagannahay khayr sababtoo ah rasuulkeenna wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam lian yahdiya allahu bika rajulan waaxidan khayrun laka min xumuri الnicam hal qof oo aad soo hanuunaysa caliyow ayaa kaaga khayr badan adduunyada macaankeeda oo dhan annagu marka khayr baan idinla maagannahay idinkuna shar baana la maagantihiin mid kale ku darsada ammaankiinna iyo barwaaqadiinna adduunka aad ku haysataan waxaa sabab u ah waxa ka sii witir witir leh dadka muslimiinta ay istikfaarsanayaan ilaahay wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala wamaa kaana allahu liyucadibahum waanta fiihim wamaa kaana allahu mucadibahum wahum yastakfiruun saabiteeda sare haddii ayanba kuwaa dantooda aanay gelin oo aanay milicsan oo aanay la hadlan wuxuu rasuulku calayhi salatu wasalaam wuxuu yidhi markaa waxaa dhici doonta buu yidhi dhammaantoodba in bimacnaa doonidii marka ay la degto xadiidka markiiba waa xadiid aad iyo aad u qiimo badan oo rasuul maxamed sal alla alayh wasalam maadaama ilaahay uu siiyey waxa lagu magacaaba jawaamic alkelim waxaa laga yaabaa intaa muxaadaro culimmada ay jeediyeen iyo kelmadda la sheegaya rasuulka calayhi salaatu wasalaam noloshoo dhan buu wuxuu ku soo koobay dooni dad ay saaran yihiin wuxuuna ku soo koobay mujtamac walbaba inuu ka koobmo laba qaybood inay ka koobmaan mujtamac walbaba iyo bulsho walbaba meel joogtahay waxay ka kooban tahay laba qaybood qayb lagu magacaabo alakhyaar oo ah dadkii wanaagsanaa iyo kuwa lagu magacaabo alashraar oo ah dadka xun wuxuu rasuulka calayhi salatu wasalaam marka wuxuu leeyahay haddii dadka akhyaarta ihi ahlu khayrka ah ee wanaagga wada haddaanay gacanta aanay ka qaban kuwa sharta wada ilaan mujtamac ka maran ma jire mujtamac ka maran shartii ma jire hadday gacanta ka qabtaan dhammaan mujtamacii dhan wuu badbaadayaa laakiin kuwa haddii la iska sii daayo falkooda lagu fiirsado oo aanan la qabanin waxaa dhici doonta bu rasul maxamed sal alla alayh wasalam in dhammaantoodba halakuu jamiican xadiidkan marka wuxuu misaaliyey qolyaha ilaahay subxaana wa tacaala xuduuddiisa ilaaliyey ee waddadii markaa ku taagan wuxuu xadiidkan uu tusaale uu ka bixiyey kuwa iyagu markaa garab mara ilaahay subxaana wa tacaala hadyigii markaa uu rasuul maxamed sal alla alay wasalam usoo dhiibay kana tallaabay sohdiintii markaa la xadeeyey xadiidka wuxuu ka hadlay qolyo markaa wanaagsan iyo kuwa xun xadiidku wuxuu markaa misaaliyey bulsho markaa ka kooban qolana ay ku raaxaysanaysa nolosha meesheeda sare kuwana ay dhulka ay taageenoo sagxadda ay garaacayaan meel ka bilaaban aanan lahayn ilaahayna wuxuu noo sheegay badbaadada waxay ku jirtaa in ummadda khaladka markaa laga soxo wanaagga markaa loo sheego